halkan waxa socda xigeenkii wasaaradda waxbarashada Ali Xamid Jibriil oo u yimiday imtixaankii waxbarashada dugsiga sare ee degmada Baki u yimid Musarraf Bilagood secondary school kaas oo imtixaanka qaybtiisii ugu dambeysay ay saaka socotay ayuu u yimiday maadaama uu yimiday markaa degmada wuxuu go'aansaday halkan ay fadhiyaan odayaashiisii aabayaashii iyo adeegadiiba inuu salaamo oo soo booqdo ayuu ugu soo bayray shirweynaha Maxamed ee ka socda degmada Baki kani oo furmay 20 bishii Juun ahaana xeerbeegtida dhaqanka reer Maxamed oo ka tashanaysa ayaka tashigeega dhaqameed oo aan ahayn mid siyaasadeed iyo mid ujeeda kala leh midna aanu ahayn odayaashaasi yihiin odayaashii geedka ee aad wada garanayso ee dhaqanka taasi oo ahayd laba qodob in turxaan bixin la sameeyo bini'aadamku markuu in badan soo shaqeeyo waxba isdhaafdhaafa in la turxaan bixiyo xeerkii dhaqanka ee reerku lahaa iyo in la yegleelo xeer hor leh oo la socdo waqtiga iyo tadawurka oo la isku jaangooyo laguna wada shaqeeyo laga bilaabo waqtigan laguna shaqeeyo hadba xukuumadaha iyo maamulada jira ee iyaguna ay ku wada shaqeeyaan siday u sameyn lahaayeen ayay ugu furnay 22 bishii maantana wuxuu marayaa 7 socday waxaan u malaynayaa xeerkii inuu ka gabagaboobay waxa u dhiman qaybta kale u dhiman oo qaybtii structure-ka hogaaminta reerka ah ayay gali doonaan marka xeerka la ansixiyo bidmillahi kariim kaasoo la ansixin doono berri ama sahan dambe ay soo noqon doonaan ergadii qabanqaabada shirweynaha ay keeni doonaan isagoo la soo sameeyey oo madbacadda la geliyey oo buuga la keeni doono halkana lagu akhrin doono marka la ansixiyo ayaana la gudagali doonaa structure-kii hogaaminta beesha laguna samayn doonaa halkan markaa mudane wasiir ku soo dhawaa ama wanaaga intiina gurweynta intaa laga soo timid halka ergadiina 42 oday reerka ugu wareegada guriga la isku keenay maanta ayaa maanta farxadaya idinkoo ka tashanaya hoggaankiina iyo dhaqankiina sidaas ku turxaan bixinaysa iyo hoggaankii reerka aad dooranaysaan taas aad baan ugu faraxsanahay waxa kale oo anigu aan hadalka badin maayo waxaan dardaar idin jeedinayaa in ummaddu inay tashato dhaqankeedii waayo marka dhaqanka ummaddu ay ka hadlayso ee ay arrin dhaqameed isku imanayaan wax wanaag ka talis weeyay waa say isku turxaan bixin lahayd say u dhaqmi lahayd say ummadda kale ee la jaarka beelaha kale la jaarka ay ula dhaqmi lahayd haddii ay bilaad markooda nool yahay wax kasta way dhex maraan say ula dhaqmi lahayd weeyay taas waa mid aad aan ugu faraxsanahay waxaan hubaa intii halkaas isugu timid ee maanta aan arrin siyaasadeed isugu yimid ee arrin dhaqameed ee reerka isugu yimiday aad baan ku mahadnaqayaa oo waxaan farxad aniga ayaa waxaan idinka ku dardaarayaa intiina waxaan mid kala maqlaynaa in meel kala joogtay boorama joogtay in meel kala joogtay degmada bari iyo galbeed iyo meel kasta ka joogtay ee maanta halkaas isugu timiday inaad isturxaan bixiseen inaad hoggaan dhaqan aad dooraneysaan aad baan diin sabool ka noqotay dhaqaale sabool ka noqotay aqoonna sabool ka noqotay way afartaa marka waxa weeye haddii halkii dhaqankii iyo ummadii iyo sida ay reerka soo celiysaan oo ay hoggaankii reerka iyo nidaamkiisii waa wax wanaagsan annaguna xagga aqoonta inaan ummadda ka jaali jirno iyo xagga kalaba sidoo iyo culimadana waxaan faraya iyaguna xagga diinta ummadda inay ka jaali jiraan iyaguna qolo waliba waxbay leedahay ummaddu markay afartaa isku hesho ayay kor u kacdaa oo ay umad jirta ay noqotaa waan idin ducaynaya anayna kelimaanahay maanta oo idin yimid oo idin soo booqday waxaad wadaan aad baan ugu faraxsanahay inaan taageeriyo heel idin fidiyo mooyaane wax kale hayga fulina waxa allaali waxaad ugu xakuntaan iyo wixii kalaba diyaar baan ahay aad baan ugu mahadnaqaya dhammaantiin guddi Sheekh Maxamed u fadhida oo wanaag iyo dadka haddii alaba ku hooyay wacyigelintii hore iyo yar baxbaxday aan moodnay marka dadka jaarka iyaga ahee hareeraha iyaga iyo kuwa tolka iyaga ahee wadaanaala buqada intaa midna xumaana uma hayno haddii dawladda la eegana dee kolley
wanaagu baan halkaa u fadhinaa waxaan leenahay soo dhawaadaan leenahay dadweyne iyo dawladaba waxaana aan leeyahay oon idigu guugaabinayo oo idigu soo dhawaynaynaa gacmo furan inaan wax kale oo qarsoon annaan halkaa ku hayn dee xeerashayadii oo dagaaladii sokeeya wax naga yar baahbaahay ayaabaan ku xidhanaynaa oon u fadhinaa sidaa iyo nabadgelyaan ku fadhinaa wax danahoo kale ma lihin hoggaanno waan ku dooranaynaa oo isagana haddaalaba kuu rooyahay halkaa buu noo yaallaa dee kollay waa gabagabayn doonaa haddii alla yidhaaho 42 baan nahay 42 yagaasi mid quraan nahay kollay talooyinka intii badnayd waa soo dhammaysanay dee tobankeeda yuu naga xirmi doonaa haddii alla yidhaah assalaamu calaykum yidhi guurtani waa 42 shirka halkan waxa isku yimid kollay dad iyo dawladda waa la maqashan yahay wixii yani Soomaaliya gaaray burbur iyo balaayo dhacayo ilmi iyo ninkiisii kala halaabeen danihii baa lumay dabadeed sidaan danihii isku keenan lahayd yani la isku ogaan lahaa yani dhaqankii loo soo celin lahaa hoggaanada loo samaysan lahaa kaliya baan isku niminay waxa weeyaan intii dib loo oran lahaana waa la yiri alxamdulilaahi rabbil caalamiin dawladdu inta noo timaadana inaan kala noo timaadaan doonaynaa degmooyinka iyo dadkaan walaalanahay wada deganahayna ina ka soo qayb galaan shirkadaan sidiisa doonaynaa kollay wax weeyaan aaya ka talinteedii ku jirnaa dad ahaan arrintu kollay waa caynkaas bishan 7 tobankeegana way loo gabagaboobaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi